بسم الله الرحمن الرحيم waxaan dhiganaa casharkeeni taxanaha ee complex number marka casharkan waa casharkii toddobaad waxaan dhiganaa maanta simplifying baan dhiganaa marka had iyo jeer dhowr jeer wax kasta qaacido leeyahay qaacidada un baa ugu muhiimsan qaacidada iminkaan halkan soo dhigayo iska xafid waayo waa qaacido aad bay muhiim u tahay qaacidadan waxay ka caawinaysaa inaad su-aasha si yar oo dhib yar aad uga shaqeyso si kastoo lagu weydiiyaba markaas su'aalahan kale oo fiirso haddii la dhaho I the power of 7 marka waxaa dhahayo waa iska caddahay marka hore horta hay loobin xasuuso casharkeena qaacidada maxayna I square maxay la mid tahay radical minus 1 bay la mid tahay haye I waa minus 1 bay la mid tahay I cubicna waa isla minus 1 kii waayo maxaa keenay intan waxay iga timid markaan aan factorizeyo ama isreeyo sidii the exponential halkan iga timid I square waa 1 waa negative 1 kan kalena waa 1 marka waa isku dhacayaan waa I negative I bay noqonaysaa 4 kuna waa isaguna waa I khaliya weji bas waayo waa laba I la isku dhafta hal ku dhufo minus 1 times waa 1 weji waad fahtaan u malaynaya intan markaa ha iloobin had iyo jeer muhiim waxyaalo badan bay ka caawinaysaa inaad xafidto weji had iyo jeer waayo waa wax yar wax kasta waa la xafidaa si uu kugu dhib yaraado haye su-aasheenaan kusoo noqono I the power of 7 maxaan dhahayaa maxay ka timid I the power of 4 times I the power of 3 baan dhahayaa markaan sidaa dhaho I the power of 4 waa 1 waan naqaanaa laakiin kan waa minus I isku dhufo waa minus I marka minus I waad fahtaan u malaynayaa haye haddaan dhaho I the power of 21 I the power of 21 haddaan dhaho maxaan dhihin waa I the power of 20 times I the power of 1 baan dhahaya waa intaas had iyo jeer exponential wanagi soo dhiganay tobanaadkii cutubka saddexaad marka kan waa muhiim casharkeena unit 3 uu nagu jiraa exponentialka kale waan dhiganaa inaad fahanto aad buu muhiim yahay marka u fiirso maxaan dhihi markaas waa the power of 5 baan dhahayaa halkaas iga timid kana waa I intaasuu noqonaya hal buu ku jibaaran yahay kan markaa waa 1 kana muxuu noqonayaa I isku dhafa waa I marka I baan helay waad fahtaan u malaynayaa waa intaaba haddaan dhaho I the power of 42 haddaan dhaho 42 waxaan dhahayaa waa I the power of 40 baan dhahayaa 40 haye I the power of 2 baan dhahayaa I the power of 2 I the power of 2 ayaan dhahayaa haddaan sheego halkayga timid waad fahmi kartaa waan malaynayaa haddaan dhaho 42 oo qayb 4 aan dhaho maxaan helayaa 10.5 ma haddaan intaa u qayb waa 10.5 baan helayaa marka 10 ku dhufo 40 4 waa 40 haye 0.5 na ku dhufo 0.5 ku dhufo 0.5 ku dhufo 10ka maxaan helayaa waa 2 marka waa halka iga timid intaas waad fahmaysaa waa markaa waa isjirayntii weji kabacdi maxaan dhahayaa 4 the power of 10 baan dhahayaa times I the power of 2 I the power of 2 na minus maxay noo ahayd inta I the power of 4 na muxuu noo ahaa 1 haye kana waa minus 1 isku dhufo waa minus 1 baan helaya waad fahantaan u malaynayaa haddaan dhaho I the power of 189 maxaan dhihin waa 188 baan dhihi xaggan horta ha sheego 4 u qaybi haddaan 4 u qaybiyo maxaan helayaa waa 47.25 baan helayaa marka intaa helo ku dhufo haddaba maxay 4 maxaan helayaa 188 baan helayaa haye 0.25 na ku dhufo 4 maxaan helayaa 1 baan helayaa waad fahantaan u malaynayaa marka waa 88 baan dhahayaa times I the power of 1 baan dhihi markaa sidaa dhaho maxaan dhihi intan haddaan usii qaybiyo 4 maxaan helayaa maxaan helay 47 markaa maxaan dhahayaa waa 4 the power of 4 the power of 47 kusii jibaaran times I the power of 1 baan dhahay
marka waa 1 times intaa times I bay la mid tahay ma isku dhufo marka I ku dhufo waa I weji I baan helay bes waaba intaaba waad fahantaan u malinayaa haddaan dhaho 3i the power of 8 3i the power of 8 minus 4i the power of 13 kana maxaan dhihin 3i baan dhahay I xidhan 4 the power of 2 kana minus 4i baan dhahayaa 12 times I 1 baan dhahay inta markaan sidaa dhaho kan maxaan helay waa 1 kana maxaan helayaa isna waa I the power of times 3 kusoo dhifo kanina waa I haye 3 1 oo lagu dhiftay kana kuyib I square I waana baan u jeedaa kabacdi haye waan kala saaray inta maxaan helayaa 3 minus 4i baan helay waad fahantaan u malinayaa casharkan waa casharkeenii taxanaha ahaa insha allah halkan waxaad ka baran doontaa dhammaan xisaab qaab aad iyo aad u fudud haddaad tahay arday youtube-kayga waxaa yaalla fidiyo badan oo taxana ah mid kasta uu ku jiraa marka insha allah soo booqo anigoo reelina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu